magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar maanta waxa ka dhacay barnaamijyo ballaaran oo ay sameeyeen bulshada magaalada Caynaba taasi ay ku taageerayeen khudbadii taariikhiga ee madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya uga furmay dalka Jabuuti dadweynaha reer Caynaba ee barnaamijyay waxa ay socda ku soo mareen jidadka waaweyn ee magaalada Caynaba kuwaas oo sitay calanka Jamhuuriyadda Somaliland ugu dambeyntii bulshada magaalada Caynaba ee barnaamijyay ayaa waxa isugu soo biyashubteen fagaaraha khayriyeed ee magaalada Caynaba waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay salaadiin uqaal waxgarad xildhibaano siyaasiyiin aqoon-yahano haween waxayna dhamaantoodba taageero u muujiyeen wafdiga hogaaminaya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ee ka qayb galay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya annagoo bulshooyinka gobolka Saraar dhamaanteed degmada Caynaba isugu soo baxday waxaanu maanta shucuurtayada iyo farxadayada aanu halkan isugu soo baxnay inaanu taageero waftigii ballaadna uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ee ka qayb galay shirkii Jabuuti waxaanu taageersanahay mowqifkii ay ka qaateen golaha iyo guusha ay ka soo hooyeen bismillaahir rahmaanir rahiim maanta dadweynaha gobolka Saraar waxay halkan isugu soo baxeen inay muujiyaan taageeradooda iyo mowqifka ay ka taagan yihiin go'aansataaga Somaliland Somaliland annagu haddii aanu nahay gobolka Saraar waxaanu la qabnaa oo la midaysanahay madaxda qaranka ee aanu dooranay ee hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi go'aankay ka qaateen Soomaaliya ayaana anaguna ka qaadanay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ha noolaado waxaanu ku taageernay mowqifkeeda iska taagay beesha caalamka qaramada midoobay oo yuuga midowga Yurub wadani madashada Caynaba isugu soo baxday ee lagu taageerayo taageeradii waftigeennii Jabuuti tagay madaxweynuhu hogaaminayay lagu taageerayo haddaanu xisbi waddo waa la qabnaa waanu taageersanahay waxaanu ku taageersanahay iska celinta madaxweynaha waftigu hogaaminaya ay iskaga celiyeen shidadana ay ula timi Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha jirto ha joogto aan taageersanahay waftiga uu hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi wafdigiisa ballaaran anigoo sultaankii gobolka Saraar madax dhaqameedka ugu sarreeyay aan ahay waxaanu ka taageersanahay halka kan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi shirkii uu ka qayb galay waxaanu halkan ka muujinaynaa taageerada aanu taageersanahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi anigoo aqalkaariye dirirgeedo gobolka Saraar ka hadlaya waxaan taageersanahay wafdidii aan u soo diranay Jabuuti sidii mugalaha iyo baaxadda ay uga hadleen dantii Soomaaliya iyo Somaliland ayagu waxaan leenahay kuwa la soo doortay ma ahayn annagu kuwa aan soo diranay kuwa farta ku dooranay ahaayeen أنا كون الله أفكار هواك قبلك صراحة متعذرسنا خطبدii madaxweynuhu uu ka jeediyay Jabuuti isaga iyo wafdii la socotayba waanu salaamaynaa Soomaaliya ma doonayno ma rabno waanu kala goonay laba dawladood baanu nahay dawladda Soomaaliland way hana qaaday wuxuu yiri abwaankii aan tarabi ma sida loo jiray dalay haddaan doqonahay bari damana baraarugay Soomaaliya haddaan bariga khaldanay maanta waanu soo jeednaa dibna idinku khaldami mayno go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waa mid aan wada taageersanahay صغير وكبير Somaliland waa fakar ay wada qabto han lagu lagoyna han lagu habsaamina wixii aan loo geysteen waanu xusuusanahay maanta wada ka digtoonay halka waxaan taageero mug iyo miisaan looga muujinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waftigu hogaaminayay ee ka qayb galay shirkii Jabuuti ayaan taageersanay haddaanu nahay dadweynaha reer Caynaba ee gobolka Saraar waxaan anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada guud ahaan gobolka Saraar waxaan maanta halkan ka taageersanahay go'aankii madaxweynaha iyo khudbadii madaxweynaha uu ka jeediyay Jabuuti taasoo ahayd go'aankii shacabka afkii shacabku madaxweynuhu ku hadlayay
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar gaashaana dhexe aadan Cabdi Cawaale Qushi iyo mas'uuliyiin kale waxayna shacabka reer Caynaba uga mahadnaqeen sida mugay miisaan kale ay ugu soo baxeen taageerada madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo mabda uu ka qaatay dalka Jabuuti markuu tagay Somaliland jiritaankeedu inay tahay muqaddis ayaynu goobtan isugu soo baxnay inagoo muujinayna inaynu la iibsanahay oo la mowqifnahay oo ka sii darannahay weliba sida uu sheegay madaxweynuhu inaynu ka sii darannahay inagoo muujinayna ayaynu goobtan isugu soo baxnay waxaanu leenahay beesha caalamka waxaanu taageersanahay hadalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu ku hadlay go'aanku ka qaatay mid ka fog baanu ka qaadanay shucuubta Somaliland iyo shacabkeeduna iyo quluubtooduna taasay taageersan tahay dawlad baan nahay اعتراف بان الدولة كسوغينا يا مامل كذا سيدا الدولة دخلتو لا بان اعترافي سيدا كله waxaan taageersanahay waftigii hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mowqifkii uu iska taagay hadalkii qarmaajo ayaanu taageersanahay boqolkiiba boqol baanu taageersanahay maanta waxaynu isugu soo baxnay inaynu taageerno khudbadii madaxweynaha ee uu ka jeediyey Jabuuti isaga iyo waftigii uu hogaaminayay ayaynu halkan ku taageeraynaa Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland go'aankii uu qaatay ee fiicnaa baynu taageersanahay sidaas oo ma Somaliland ha noolaato Allahu